Assalaamu calaykum. Maanta waxaynu ka hadli doonaa taariikh nololeedkii madaxweyne Daniel Toroitich Arap Moi. Madaxweyne Daniel Toroitich Arap oo dhashay 2 bishii Sebtembar ee sanadkii 1924 kana soo jeeda qoomiyadda Kalenjinta ee degta galbeedka waddanka Kenya ayaa xilka madaxweyne ku-xigeenka qabtay sanadkii 1967 kadib dhimashadii madaxweynihii koowaad ee Kenya Jomo Kenyatta. waxaa Moi u ahayd guul siyaasadeed oo uu gaadhay maadaama xilligaas ay jireen siyaasiyiin kale oo ku ag hareereysnaa Kenyatta kuwaas oo u hanqaltaagayay inay xukunka qabtaan. Sanadkii 1978 waxaa Moi loo dhaariyay xilka madaxtinimada waxaana Kenya uu maamulayay tan iyo 2002. Moi waxa uu ka tirsanaa xisbigii waagaas talada dalka haya ee KANU oo waxa ay aad isugu dhawaayeen madaxweynihii isaga ka horeeyay ee Jomo Kenyatta. arrintaas oo u sahashay inuu saameyn ballaaran ku yeesho maamulkii xilligaasi jiray ee uu ka tirsanaa. maalmihii ugu horreeyay ee xukunkiisa waxa uu shacabka dalka Kenya ugu baaqi jiray inay gacan ka siiyaan sidii uu u dhisi lahaa dalka waxaana uu caan ku ahaa halkudhigii caanbaxay ee Nyayo oo uu mar walba doonayay in dalka lagu sii maamulo siyaasadihii Jomo Kenyatta oo ahaa aabbaha dhalay madaxweynaha iminka talada haya ee Uhuru Kenyatta. Daniel Toroitich Arap Moi waxaa xilligaas uu taageero badan ka haystay shacabka waxaana la sheegaa inuu wax badan ka qabtay dhaqaalaha, waxbarashada iyo ammaanka. Moi ayaa xilliyadii ugu horreysay xukunkiisa waxa uu sidoo kale taageero ka haystay dalalka reer galbeedka oo waxa ay u arkayeen nin ka hortagi kara nidaamkii shuuciga ee Soofiyeedka oo xilligaas laga cabsi qabay inuu ku baaho geeska Afrika. inkasta oo maamulkii Moi uu gacan bir ah ku qabtay Kenya haddana waxaa jira rag ka tirsanaa militariga oo isku dayay inay xilka ka tuuraan. sarkaal ka tirsanaa ciidamada cirka ee militariga ayaa sanadkii 1982 sameeyay isku day afgambi oo markii dambe fashilmay kadib markii uu soo farageliyay Generaal Maxamuud oo ah nin Soomaali ah oo ka tirsanaa militariga kana soo jeeda gobolka waqooyi bari ee Kenya. tallaabadaas la doonayay in xilka lagaga tuuro madaxweyne Moi ayaa la aaminsan yahay inay horseeday in Moi uu la soo baxo dabeecado hor leh sidoo kalena uu noqdo keligii taliye curyaamiyey dimuqraadiyaddii Kenya. dad badan ayaa xilliyadaas loo taxaabay xabsiyada waxaana xigay xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha, dilal lagula kacay dadka aan la dhacsanayn siyaasaddiisa iyo qabyaaladda oo ku baahday dalka Kenya. waxaana ereygii Nyayo oo macnihiisu uu yahay hore u socod dad badanna marka ay maqlaan ku xusuusan jireen wadaninimada uu isu beddelay mid dadka xusuusiya tacadiyo iyo jirdilka ay dowladda Moi kula kacday dadkii uu markaas u arkayay inay mixnad ku noqon karaan dowladdiisa. dowladaha ugu tunka weyn caalamka ayaa xilligaas joojiyey taageeradii ay siin jireen maamulkii madaxweyne Moi waxaana cadaadiskii waddamadaas ay saareen Moi ay keentay in dalka Kenya uu sannadihii 1992 ka hirgalo nidaamkii xisbiyada badan. hase yeeshee xilligaas ma aysan jirin mucaarad isku toosan oo awood leh oo mar kale doorashooyinkii dhacay sannadihii 1992 iyo 1997 waxaa ku guulaystay xisbigii madaxweyne Daniel Arap Moi ee KANU. horaantii sagaashameeyadii madaxweyne Moi waxa uu cadaadis kala kulmay dalalka iyo hay-adaha caalamka kadib markii laga deyriyay musuqmaasuqa iyo xaaladda xuquuq aadanaha ee waddanka Kenya. xilligaas waxaa sidoo kale aad u liicay dhaqaalaha Kenya waxaana dhibaatooyin badan oo isbiirsada ay mar dambe keentay in uu lumiyo taageeradii ay u hayeen dalalka reer galbeedka. arrintaas oo horseeday in la takooro maamulkiisa. sidoo kale madaxweyne Moi waxaa aad loogu xusuusan doonaa dhowr xasuuq oo uu ka geystay Kenya intuu xilka hayay haba ugu darnaadaan xasuuqii ka dhacay Wajeer ee Wagala, Garissa, Gubay iyo Malakamari oo ka dhacay Mandera. dowladdii Moi waxa ay xilligaasi ku raajoogtay dadkii aaminsanaa in deegaanadii la isku odhan jiray NFD ay ka mid noqdaan Soomaaliya waxaana dadkaasi uu Moi ku tilmaami jiray kuwa budhcad ah. ciidamada Kenya ayaa dad lagu qiyaasayay 3,000 oo qof ku laayay tuulada Wagala ee Wajeer walow xasuuqii Wagala uu noqday
mid uur ku taalo ah oo xanuun badan ku reebay dad badan oo Soomaali ah ayaa haddana weli waxaa muuqata in tacadiyadii dhacay xilliga taliskii Mow aanan waxba laga qaban karin. warbixin ay sanadkii 2013 ka soo saareen guddida cadaaladda iyo dib u heshiisiinta ee TGRC ayaa waxaa lagu sheegay in dowladdu ay cadaalad fasho magdhowna siiso dadkii ay waxyeeladu ka soo gaadhay dowladdii madaxweyne Mow walow warbixintaasi aan la dhaqan gelin ilaa iyo haatan. inkastoo madaxweyne Daniel Toroitich arap Mow lagu tilmaamo in uu ahaa wadani keligii talis ah oo Afrikaannimada ay ku weyn tahay ayaa haddana dad badan oo reer Kenya ah waxa ay ka xasuusan doonaan xumaan iyo wanaag si gaar ah u saameeyey qof walba. ugu dambeyntii madaxweyne Daniel Arap waxa uu ku dhashay Sebtembar 2, 1924 Saako, waxaana uu ku dhintay February 4, 2020 Nairobi, Kenya. inta ayaynu ku soo koobi doonaa taariikh nololeedkii Daniel Arap Mow, madaxweynihii hore ee Kenya.